بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله تعالى وركوبا وحين كورن دون كلمة التوحيد أو كلمة النجاة أو طوق النجاة، كلمة بدبادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأريغا أدونا اللغو بدباده، آخرنا اللغو بدباده، أما نرشد لما أنت بدباده دي كجرته. التوحيدكو لا إله إلا الله. الإله في اللغة هو المعبود. إله مركه هore waxa la yiraahdaa afka carbeed wixii la caabudo, ama xaq lagu caabudo ama baatil lagu caabudo. ولذلك بقى إلهي القرآن wuxuu ku leeyahay أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ka waramaka ka yeeshay baa Ilaahay leeyay ilaahiisa ka dhigtay hawadiisa, yani hawa nafs ayaa macbuud u ah. naftiisu waxay doonto ayuu sameeyaa, xalaal iyo xaaraan intoona ma kala jirto. wixii naftiisu jeceshahay buu ka dambeeyaa. markaanu nidhaahna markaa laa ilaaha ila allah, macnaheedu waa laa macbuuda bixaqin ila allah. cid xaq lagu caabudo oo cibaado mudataa ma jirto alle mooyaane subxaanahu wa tacaala. waa kelmadda lagu soo galo diinta, waa slogan ama waa shaciira ama waa tilmaamta islaamnimada baa cinwaanka u ah. laynama odhan dhaha laa rabba siwaah, laa khaaliqa ila allah, laa raasiqa ila allah, laa muxyiya ila allah. waana sax, laakiin waxaa laynidhi waxaad tidhaahdaan laa ilaaha ila allah. towxiidku culamada qaybisa, qayb waa saddex qaybood bay yidhaahdaan, qolana waa laba qaybood bay yidhahdaan, qolana waa ruuxuba waa hal qayba bay yidhaahdaan. mar waa saddex qaybood bay tilmaamaanoo towxiidka khaaliqnimada iyo rabbinimada iyo wixii la halmaala, asmaada ilaahay ee asmaa'il xusnaha ah, iyo towxiidka cibaadada ku saabsan ama towxiid aluluhiya. mar waxay dhahdaan waa laba uun, waa towxiid almacrifa iyo towxiid alqasd. ama si kale haddaanu nidhaahno towxiidku waa alcilmu billaahi waalcamalu lilah. ilaahay oo aad garatid rabbinimo iyo khaaliqnimo iyo asmaa'il xusniisa, ilaahay oo aad macrifo u yeelatid, iyo camalkaad qabanayso dara la noqda. iskale haddaynu idhaahno waa laba qaybood, waa qayb xagga rabbi ka timi oo ah inaad rumayso, sidaa u rumayso, iyo qayb adiga kaa tegayso la rabo inaad ilaahay u keli yeesho. qayb xagga rabbay ka imanaysa oo waa ilaahay oo isu kaa sifaynaya, anaa rabbiya, anaa khaaliqa, anaa kana, anaa muxyiya, anaa mumiita, biasmaa'ihi wa sifaatihi alculaa, oo lagu leeyahay aamin. qaybna aday kaa tegaysaa oo waxa weeyaan wixii cibaado aad la imanayso isagoo qura ula kaalay, waa ficilkaagii adiga kaa tegayay, oo sida cibaadada, nadarka, rajaaga, khawfka, tawakulka, inaabada, waxa laaliya wixii ama acmaal alquluub ama acmaal aljawaarixi aday kaa tegayaan. qofka mu'minka markaa waxaa laga rabaa waxa weeyaan ifraad ullahi bilcibaada, ilaahay oo aad cibaadada ku kali yeesho, iyo walbaraa'ati min kulli macbuud, iyo wax kaloo la caabudo aad beri ka noqoto, aad ka dheeraato. ilaahay qur-aanka wuxuu inoo tilmaamayaa rususha waxaa loo soo diray rabbi cibaadadiisa inay dadka baraan. mas'alada ah ilaahay inuu khaaliqiya, inuu muxyiya, inuu mumiit yahay waa masaa'il fitriya. inta badan bini aadamku wuu rumaysnaa,
taariikhda aadanahana way yartay wax ka dooday dadkan iminka nasakhmay mooyaane oo iminka maskhi duwal wadaanba bini aadamka lagu hayaa oo qaabka waxbarasho ah oo ilxaadka iyo diin la'aanta faafiya laakiin bini aadamkii caadiga ee normalka ee cala alfitra ahaan jiray inta badan masalada muranba kagama jirin ilaahay iyo weynidiisa iyo khaaliqnimadiisa iyo ka laakiin masaa'ilka cibaadada iyo cidda loola qasdinaya inta badan qaldami jiray rusushu markaa cinwaan waxa u ah waxay bini aadamku qaldi jireen in loo saxo ayaa ah shaciirada ugu weyn ama calaamadda ugu weyn ilaahay wuxuu leeyahy wama arsalna min qablika min rasuulin ila nuuxiya ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun adiga hortaa maanan soo dirin baa ilaahay nebiga ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam rasuul kaa horreeyey ma iman ilaa iyo rasuul walba waxaan u soo waxyooday oo la soo farayey annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun war mid xaq lagu caabudaa ma jiro aniga mooyaane ee aniguna caabuda ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahy was'al man arsalna min qablika min rusulina ajcalna min duuni araxmaani aalihatan yucbaduun adiga ambiyadii kaa soo horraysay iyo rusushii kaa soo horraysay bal warayso oo miyuu jira cid aanu ku soo dirnay in ilaahay khayrkii la caabudo idan dacwadii ama diimihii ay la yimaadeen nebiyadoo dhami hal diinun bay ahayd ina diina cinda allahi alislaam buu ahaa diin labaad ma jirto wixii rasuul iyo nebi xagga alle ka yimi waxay lahaayeen dhammaantood ilaahay caabuda marka bini aadamku mas'alada ka weecdaba rasuul cusub baa la soo diraya oo leh ilaahay caabuda haddaba waxaan leenahay diinta ama tawxiidka rususha loo soo dhiibay ama bulshooyinku markay weecdaan ee inxiraafaan awal طariiq loogu yeedho ama awal maqaamaat min maqaamaati الsuluuk jidka koowaad ee la qaadsiiyey waa kaa laqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmih faqaala yaa qawmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin gayru nebi nuux baanu soo dirro tolkii u soo diray baa ilaahay leeyay waxaanu lahaa yaa qawmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin gayru war alle keligee caabuda cid lagu lamaaneeyo oo cibaadada la wadaagtaa ma jirto nebiyullaahi huud اعبدوا الله ما لكم من إله غيره في سورة الأعراف نبي الله صالح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله شعيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره في سورة الأعراف أنبياء إلهي تحيا ومدوا لبوح وضائي تحي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لك لي عابدا عد عبادة لو ذاتي يا مجرته إلهنا قرآن وحكوت المامة في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وحنكو صادر أمت كستو الدنيا جوكتي رسول بانو صادر ربا إلهي لي رسول شي إلهي صادر وابنايين بدنا والله ينو شاقين بدنا اللي ينو شاقين قرآنكو دوري الله باتنو بك ورميا انت كلا لك ما ورمين لكن إلهي وحو شاقي أمد الدنيا ما جرين إلا الرسول كيدا ويمي قرآنكو سن دوري الله تمو مقعابا إلهينا وحو قرآنكو تلماما منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص قارا أنو كاقا ورنين واجران رسوشا قارا أنو كاقا ورنين واجران لكن كوي لغا ورمي إيا كوان لغا ورمين بهل وحن بنو سودي بيبا إلهي لي ولقد بعثنا في كل أمة ummad dhammaanteed rasuul baan u soo diray baa ilaahay leeyahay rasuulkaas ummad kasta u yimi muxuu waday ucbudu allaha wajtanibu taaguut ilaahay keligii caabuda oo taaguutka ka fogaada ilaahay keligii caabuda oo taaguut ka fogaada wixii rasuul yimi oo dhami iyo wixii nebiya yimi oo dhami weedhaasay wadeen نبي محمد عليه الصلاة والسلام اسنا تاسمود يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صحابتي أودري يقولك كلا أودري
وحاو قدري معاذ بن جبل مركو نبي يمن دري وحولي إنك تأتي قوما أهل كتاب وحدو تجدون تأدول أهل كتابة فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وغير كلمة توحيدك هداي تاكا أقبلان والشيخ شان صلاة دودو لقولة يهبيني مالنتي هداي تاكا أقبلان دبتنا أركانتي بوتري دبا أيها الأحبة كلمة التوحيد وهو حين النبي يورد الله صادري إسلام مركانا والنعمة وقوين إلهين وقو قلت شيئا أيوه سؤال شو حيتي مركا وابن آدم قدم مشكلة قرى وذا هيستي اللي الرسول شوح الله صادر مشاكل كدوني دين يحللان الرسول شوح يوي مادين دباتوين كي دوني ديالي إنه وحكا قبطان وحكا بدلان آدنه سيدو بدبادي لها يوت المامان هذا قرآن قوحة المامية مدولبا وحلو سودي بكو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بل إلهي سبحانه وتعالى سورة علماء قار سورة النعم ككت المامان سورة النحل سورة إلهي وحكا ورما يوحو نمعين وقال الله دايستي نمعوينات اتربضا بسورة اترينيسا وحولها له وعانها له وملبك له وعركي يدولك إلهي وصخيري له وبضها له waxaa dunida ilaahay abuuray oo dhan buu inoogu mana sheeganaya la tirinaya laakiin suurada nicmada koowaad ee suurada ilaahay uu ku sheegay waxa weeyaan yunazzilu almalaa'ikata birruuhi min amrihi ala man yashaa'u min cibaadihi an anziru annahu laa ilaaha illaa ana fattaquun nicmada koowaad ee markuu nicmooyinka alla sheeganaya uu sheegtay waxa weeyaan waxyi baan ku soo dejiyay rususha للي يدتك ودقوا الشيغا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أنا قولي إن أنا هي محي إله حق اللغو عابده أنا قولي إن أنا هي إله حق اللغو عابده وحي إلهي نوت المامية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ننك وحي إلهي غير كي يكقالوا بين عابده الله الرمية كاسي حرقي أتكابو قبصدي با إلهي لي حرق أدك أنقو استلهيم بو قبصدي هذا با درسي يقول حكو سابسيسية موضوع كان لبقى يبضو كميدا كاسي هو موضوع عام كيسي كلمة التوحيد الرسول الله صادره سأل ما سويدينينا كل dhibaatooyin badan bay qabeen waay looga bilaaba tawxiidka dhibaatooyin badan baa jira dhibaatooyin akhlaaqiya jiray qaarkood dhibaatooyin siyaasiya jiray qaarkood dhibaatooyin dhaqaalaha jiray qaarkood dhibaatooyin xadaarad ku saabsan baa jiray kii rususha loo soo diray dad hal mashkilad oo quri wada haysata ma ahayn waxay ahayd dad mashaakil tiro badan oo kala noocay haysteen quraanka wuxuu tilmaamayaa qolo walba mashkiladii haysatay wax ka mid ah مثلا reer banu Israa'iil dad la gumaystay haayeen Fircauna nin wax gumaysanayo ahaa mashaakil political baa yaalay mashkilad siyaasiya baa taalay nabi Muuse waxa loo soo diray dadkan inuu xoreeyo Fircaun laga xoreeyo ومع ذلك وحل يدي واحد كبل وضع اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله هود يا عاد قوم كاس غير عاد نمن كبري وحضارات الله وأتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين إلهي وحكا ورميا نعمة إن لسيي وبورها قرية كقري جيرين وميل كستا علامة يمكن سو وضنada يوحاني ساينس علامة باريس برتدير با تاغن مريكان توجكا وتاغن قلبا علامة سمايستا كون waxa la leeyahay atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun meel kastaba calaamad ba ka taagteen ciyaar iyo dheeldheel idinka
رسول الله لو صادر قار مشكلة دقالة هيستي نبي شعيب يقوم كيسي مالك استوى شعيب كور رميه ولا تبخسوا الناس أشياءهم أوفوا الكيل والميزان بالغ والرمية بشكل دقالة جري هدنا وراكو حط المامي النبي والبوح عليه هلك كبلو اعبدوا الله ما لكم من إله غير ما السر في نظري والله أعلم لما مسأله هو وين بجره وهذا يا صحة وحكذا بيورد ما يا صحية مسألة كواد ومحي كو وحلق ورمي يا إلهي حقي سين للصغة دوني داي إنه ما أنت تشوفنا وح مقاشان حقوق ده بني آدمك حقوق ده هويوينك حقوق ده عرورته حقوق ده محل ده حيوانك حقوق بدن الله قهض ليه حق وضع مضمبه جرا وحاصودا حق با جرا هدو اسقو سقمه وحا كدنبيو دما يسقميان وإلهي حقيس سبحانه وتعالى إلهي وحلي أنا إذن أبوري كون كان دمانتين أنا أبوري وحا عنيساني وحا عبسان بانا له دريدن أردن أنا اسكاله حقي وقود هدا فلسان ويدين معيني يا وليبا إلهي حقي سوا محي مرك إلهي سبحانه وتعالى حقي سوحي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلهي حقي سوحويا عبادة اللوغارية له إن أنعد لدينا وضنون كاليجي إفراد الله بالعبادة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث كالصحيحين ككوية الله saxaabigii dhalinyarada ahay Mucaad ibn Jabal loo oran jiray ayaa nabiga dameer fuushan la soo raacay dabeetana cabaar markii ay socdeen ayuu wuxuu yiri ya Mucaad ibn Jabal riwaayada Bukhari sheegayso war Mucaadkiina Jabal ahaayo saxaabigu walaal hadlay nabiga wuxuu leeyahay labbayk rasuul Allah wa sa'dayk kuma qalo ku ajiiba ilaahi rasuulkiisiyo وحبب مشيقي النبي وصعده هذا مدة ساعة مركي إلا السعودي أيو نبي هدنا يري يا معاذ بن جبل معاذ كي إن الجبل هايو سحابي وحده له رسول كيسي وكو أجيبه وكو وأطيعي أحب النبي ومشيقين والله صعدي دمركي إلا السعودي وهدنا النبي يقول يا معاذ بن جبل سيدي سلك بالسحاب يقول رواية كقاركود أفر شربة المامية هاي علماء يدادان ومن أدوات التنبيه قف كم مركه ربطه إنه ودنجا النقضه هذا الكرينا نصف ضد كل عافين وحال استعماله قف كل جسوت شيء إن قف كويه ده هي مركو يداه هذا أنا أدو حبه الشيء هذا أنا ويه ده هي مركو يداه أدو حبه مركه دم قف وحسنين وحن لجو شيء يا محيتي أخيرا بو النبي عليه الصلاة والسلام هل تدري ما حق الله على عباده ما قرنيسا حق ألا أدومدي سكولي ما حق الله على عباده إلهي حق أدومه سكولي ما تقارنا أبو كيري صحابة عادة دوحة أهيد نبي عليه الصلاة والسلام إنك حشودان وحتى وحي قرنيان هدو ويديو الله ورسوله أعلم بيولجين يقول رادين زيادة للعلم والله جاي النبي وانت يقرني وحكى بضمبا إنه شيء دبتنا النبي وحكويري إلهي حقيس وأضمها كله وحويان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إن يعبدان السجا عدنا أنا كل ما نين كالجيني عبادة ولي مادان عدنا أنا كل ما نين مدمر كانوا السعني أيها النوح النبي يقول وان معاذ بن جبل هابان لبويري حنبوري أضامه يو حقي مركا لين وتغانا حقوق الناس وحيتمادا بعد حق الله سبحانه وتعالى هدي إلهي حقي سلا الصغو وحي كدن بيا حق بني آدم بلا ما هذا حقوق بني آدم كما تغانا أبو نبي بويري الله ورسوله أعلم بويري
حق الله حق العباد على الله ألا يعذبهم النبي عليه الضوامهنا هذا بحق إلهي سوساري وحويان هذا صداقكم منادان إن أنا العذاب إن أنا يدي بارك هذا أيها الأحبة رسول شوحي مسألة نقبل بيان ومسألة كوادة هذا يد الصغن توحى كلا صغمية إلهي حقوق دي سهدي الله أقبله داد منس ورك إلهي بالله أقبله وياه ورك إلهي هداد ياشنه عيد والبا إلهي ساقا حق يساسيه حق الرقا حق الدمر كي حق بني آدم كي حق حولا يملو ميان مركا حقوق دانور دميوان محي وفي شرع الله بيكو تعالى إذن أول رسول شوحك كوادا لغو صادر محي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما نهدو يهي إن إلهي عبادة لوكالية له وسكلا هذا نحن ما نهدو يهي إن حق الله السوء وكلمة إسلام كوكو بلابه ومفتاح دار الجنات ووين آخره مركا تكتنا لقويدين دونه وإلهي قرآن كوحو كتل إلهي قرآن كوحو كتل المامية سؤالا لين ويدين دونه كم تهي ماذا كنتم تعبدون أدوك مركا شوكتين وربحا عابدوا جرتين وماذا أجبتم المرسلين رسول شي محاوق جوابتين ولا إله إلا الله محمد رسول الله أيها السؤال اللي نويدين أيوه هذا اعبدوا الله ما لكم من إله غير وحايت الماميسة وغهرين حق الله إلا الصغوه حق ربي مركو السقما با حقوق دا مخلوقاتك أي كدب السقما علماء دا واحد شيء اللي بعد باجرة ترتقي إنه والله ما قضبوكو كوبي شيء اللي بعد دوام حي مسألة تانية ومفتاح بني آدم قال له غفره قرقو الصومال هاي الباب لقا قاله دات فرطه وفدودية وحا كدن بيانت قرقو صعطه دات استرى هذا سيد دربيقا كقال وواحدك إنسانكو انحرافات بدن بو قلاه قلوع سن بدن با نولشا كو يمادا قلوع سياسديد با يمادا قلوع نقالا يمادا قلوع أخلاقيد با يمادا قلوع يترى بدن با نولشا قلاه سيدين الله صحا قلوع عمركا dadka aan waxyiga xambaarsanayni waxay isku dayaan mashaakilka inay mid u waajahaan laakiin markay mid hagaajiyaan badhanka kale ka furantaa waana aadanuhu tajaaribta wada nooca marka dhan laga busteeya laga karkaraba meel kale ka dalooshantaa haddaba furu leeyahay bini aadamku haddii lagu furo مشاكل كي سودان سفضد لو إصلاحين كرو وحي دون طبعا مشاكل كاسي هاتا كدنبية مشاكل نقالة ها هو صورتقل مشاكل سياسية ها هو صورتقل مشاكل اجتماعية ها هو صورتقل مشاكل أخلاقية ها هو صورتقل مشاكل حضارية ها هو صورتقل ولذلك أيها وحي نولينا هاي أستانتا موقتا وحي تهي نبيادو أصليا يرسوش noloshu markay mugdiga gashay madoobaata ilaahay soo dira in dadka dhabaha saxda ah dib loogu soo celiyo idan rusushu waa qaadadii waa hogaanadii aadanaha jidka toosan tusayay markay caqiidadu xumaato ayaa waxa ka dhasha caqiidadaasi inxiraafaat dhaqamo xumo kale caqiido toosan siyaasad qaldan ma dhasho فرعون waxa siyaasaddu qaldantay oo gumaysiga bilaabmay markay caqiidadu qaldantay qowm Luut waxay faaxishada u baxeen markay caqiidadu qaldantay reer Shucayb waxay mushkilada u baxeen ee dhaqaale xumo ku yimaad markay caqiidadu xumaatay umamku markay caqaaidu lunto tawxiidku markuu lumo ayaa waxa ka dhashay inxiraafaat bashariya inxiraafaadka bashariga ahi baabku doonu noqon karaa باب سياسات بو نقون كرا باب اخلاقيات بو نقون كرا باب نقم بو وحو دورو سو بخي كرا هداد ربطو اناد صحدا marka انحراف كاسي كو مدخا laga saxa laga yaabo dadku inay yiraahdaan aan iraahdo caamada af ingiriisiga ku hadasha
أحمد في إنجليزي كو هذا الشيء وحن وقدن ليه وضدك علوم تكالب برتا الدين كإلهنا وحكا قونين قف كان وحبو قرنيا لكن ما قرنيا وحي وكريي وإلهي دين تيسي إذن سوشيالي بو برتي وحو ربا بلشادي إنو هقاتشيو بوليتكس بو برتي وحو ربا سياسة دي إنو هقاتشيو نقالو برتي وحو ربا نقالي إنو هقاتشيو وحبو حقا كهقاتشينيا حقا كالو بيكا سيدا لو شميسا وسياسات كغربية يا وسكا يا إيسكا يا دوني دو دنكا جيرا وحن بالله إصلاحينا يا ميلكا لك دلاعيسا تنبالله إصلاحينا يا دنكا لك دلاعيسا واي وهلاني فرها آدنا هالكي ugu fududayd baan laga marin furaha aadana hadii halka ugu fudud laga maro waxaan oo dhan way salaaxayaan ولذلك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحيمي عرب وبابا عرب dhulkoodii labada qaybood ugu fiican dhul beeroodkoodii labada dawladood ugu xoog badan haysato عرب dhul beereedkeedu waa Iraq labadeeda wabiya Sham iyo intaasay ahayd iyo Masar iyo inta wabiyada leh iyo intan hoose Yemen labada qayboodba Yemen waxa haysta Persia Iran ba haysata Iraq qaybaheeda badan Iran ba haysata Sham iyo Masar iyo inta tanna Romanska haysta idan laba dawladood waaweyn ma kala raacsan intan dhaxay saxaaruhuna wadad islaaya oo burbursan oo nolol adag oo dhiban ku jira ilaahay nabi maxamed uu soo diray alayhi salaatu wasalaam inuu dunida islaaxiyo marka la eego cadaaladdu waxay gaarsiisaneen heer oo ku gabayagoodu yiraahdo ninkii aan safetyisa ku ilaashan darkiisa waa laga duminayaa darka biyaha waa laga duminayaa hadaan safetada ku ilaalinaynin marka nin xoog badan un baa wax dumarka iyo caruurta iyo agoonta iyo waxaas xuquuq ma leh caruurta iyagoo nool baaba dumarka la xabaal nololiya waaba la aasaa bulshadu waa tabaqaad dhaqaalaha in yar baa riba ku haysata bulshada noocaas iyo markii la rabay in la islaaxiyo lama odhanin qowmiye carbeed samee wadanka carbeed xorriyad u raadi maamul u samee meel kale ilaahay yidhi ka bilow waxaasoo mashaakila meeshu waa wada mushkilad halkii la taabtaaba laakiin waxaasoo mashaakila waxaa la yidhi waxaad ka bilowdaa qadiyatu tawxiid quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu baa la yidhi ku dheh quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu laa ilaaha ila allah dhaha oo dee dhahis afaan maaha ee waxay sheegayso ku dhaqma waa liibaanaysaan walidalik baa waxaynu leenahay ambiyadii ilaahay soo diray ee qur-aanka kaga warramaya iyadoo mashaakilkii bulshaadkooda laynooga warramay ayaa haddana qur-aanku wuxuu ku bilaabaya nebi waliba inuu lahaa ucbudu allaha maa lakum min ilaahin ghayru ilaahay caabuda ma lihidin cid kale haddaba waxay leenahay amraada xanuunada bulshada ku dhaca ee siyaasiga ee iqtisaadiga ee xadaariga ee akhlaaqiga ee ijtimaaciga dhammaantood isku soo dar meesha ay ka bilaabmaysaa waa kaa nabi maxamed naqulu laa ilaaha illa allah tuflixu buu qabaa'ilka kula wareegay markay xajka isugu la yimaadaan xadiiskii nasaa'i baan rajaynaya inuu warinayay sheekh alalbaanina irwaaga ku tasxiixinayo qulu laa ilaaha illa allah tuflixu buu nabigu lahaa war laa ilaaha illa allah dhaha waa guulaysanaysaane markaasaa abilahab iyo shayaadiin kalena daba socoto ay leeyihiin waa nin waalane waxbaa ka dhegaysanina ku saxaabadu dirayay innaka ta'tii qawman ahla kitaab baad u tegaysaa buu yidhi duul ah maxay ku dheh fadcuhum ilaa shahaadati an laa ilaaha illa allah baa looga bilaabay waa nin rasuulullah ugu yeedh kelimatu tawxiidka laa ilaaha illa allah idan ayuha alaxiba waxaynu leenahay dunidan haddaynu rabno inaynu islaaxino islaaxaasi wuxuu doonaba ha ahaado caruur baynu rabnaa inaynu islaaxino dad waaweyn baynu rabnaa inaynu islaaxino dhaqaale burburay baynu rabnaa inaynu hagaajino bulsho baaba'day baynu rabnaa inaynu hagaajino siyaasad luntay baynu rabnaa inaynu hagaajino xataa haddii ay jirto wadooyin la maraa
وفر سيريا حتى هدي جرتو ودوح لغو إصلاحين كرا أقصر طريق وددا وقابني واتن even though هدي ندانو هدي بقى جرتو ودوين وحلوها كاكاتشي كرو تيبا هذا شورت السوي بين سويدين تيبا وقابن سألة النبي مركو مرة الصحابة كل ربيين ينقادين التابعين كل ربيين around 50 years بيدوري دنك كلا بوربين انت يسومالد حرنمada هذا sheeganayso in ka yar bay min China agagaarkiisa ilaa Spain agagaarkiisa ku islaaxiyeen dunido dhan lagu hagaajiyay ma aha jasiiratul arab qura caalamkii la yaqaanay ba waagaas dadku deganaa ayaa lagu hagaajiyay maxaa yaa hagaajiyay dad kalimatu tawxiid sida Persia Iran markay dagaaladu socdeen ayay yiraahdeen cid noo soo dir balan wada hadallo ciidanka muslimiinta Sa'd ibn Abi Waqqas ba hogaaminaya jarankii Persia Rustam wuxuu leeyahay waxaan rabnaa bal wada hadal saddex nin oo kala dambeeya kulba nin loo diray ragii loo diray waxa kamid ah Rabi'i ibn Amir ربيع بن عامر والصحابي انت اصدقال كسو جرى اسكر رافاسه وتغي ور ما دولكين idinka keenay su'aasha abu weydii ما الذي جاء بكم wuxuu saleeyay nimankan mala wada qaaladoon iyo meel saxara bay ka yimaadeen oo engegan aan waxba oolin mala deeun haday dhaqaale helaan way iska tagi lahaayeen marka wuxuu rabaa inuu u sheego inuu u soo bandhigo in adduun idin siinay meeshin iskaga noqda وحول ياي وعربطان وهو جوابه معي الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده إلهي وحن نص هدري دتك أدون صنيا أنا نكسر دتك إلهي أدون ما وقدقنا قال لك هلجين لعابده إن نكسر نبي من جور الأديان إلى عدل الإسلام إن نكسر من ضيق الدنيا إلى سعتها dunida cidhiidhigeeda inaanu ka saaro oo balceeda inuu tusnabo leeyahay hadda waa nimankan waxba haysan saxara ka yimi ayaa qoladii xoolaha haysatay waxay ku leeyihiin waxaan u soconnaa cidhiidhiga adduun inaanu ka saaro idan dunida waqti yar مشاكل سياسية هي كيدي اقتصادية هي كيدي أخلاقية هي كيدي إنسانية هي كيدي اجتماعي وحضورة ما نقضي مشاكل كيا اللي وقت يربى لغو حاجاتي ساو قالوا حلانا حتى هداي وذكر والله مري كرابة شرتو even though هداي شرتو تقول له الشورت السويقة هو كان حلقة بدأتكم إلى هذا ودك يبقى لكم مري ودادتنا لا إله إلا الله أنهم بيولي وضعن دادك إنما سياسة حماتي كان حماتي إذن ولي لا إله إلا الله يسلا دالتك كذا وضعن يعني وجهلي هلكي ودن بيسي وهي وقف قران لا رسوشي إلهي بصدري وحي دوني دكو هجاجسي إلهي دوني دو مدوب الرسول صدري رسوشي الله صدري وحي يكو هجاجسي بقران كاري لاي إذا وحينا لا نهي لا إله إلا الله وكلمة النجاة أدونك أنت اللي تشوغا لغو بدبادية أدونك أنت اللي تشوغا وكلمة لغو بدبادية حتى أن الله شمرك عريري قشو إلهي وحينا تلمامي النبي كاللون لقي صوماها قرآنكم أيضا رك وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه نبي كاللون لقي habeen madow ku jira bad madow ku sii jira calool kalluun ku sii jira meesha durugsan ku jira fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin halkaasuu kaga dhawaaqay baa ilaahay leeyahay la ilaha illa anta kalimatu tawhid iyo tasbiih subhanak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin halkaasuu i'tiraaf la yimi uu leeyahay wax kasto igu dhacay ilaahu ana ka mas'uula أدعو ضدك مدو المدين إن الله ليس بظلام للعبيد اعترف بتقصيري الرسول لي وحى مشاكل هايستا ومني حق يقوم بكي مادين إله ودقوا بريبات كطاي وأنا كنت توحيد سنية إلهي نوح قرآن لي فاستجبنا له
ونجيناه من الغم وكا أقبل لي إلهي لي يدي ساسي بريدي ساسي مرغدين وكسار ريبا إلهي لي وما وحي كو أكتهاي نبي يونس وقرا مايا إلهي حولي وانا قاعدة وكذلك ننجي المؤمنين باكو حكت وكذلك ننجي المؤمنين سداس أمبانا عدي يشاء مؤمن وبدبادين يا با إلهي لي عدي توحيد كي سرنب كان نغطو ساسو بدبادية إذا وحلينا أدونك هدين ربنا إنه بدبادينه كلمدنا يوحي شيء يسينا صفي عن الروح أو صفي عن أفهمنه يدي بدبادة كتشرتا يوحي كفرعمة أدونك يدا لغو بدبادية آخرنا دي أحاديث يا قرآن كبواركتين نارت وحلقة بدبادة إنه هي كلمة التوحيد جنة وحلقة قال أنا إنه هي محي كلمة التوحيد حديث البطاقة حديث كشيء جاي آخرين اللي سوتها جايو ذنوب بدن جيستي دبتنا السجلات 99 سجلا بالكينية سقال إيه سقاشا فايل بوك بالو كينية وذنوبكو قرنطي ولا لي كان ما سميس وقرنيا ولا لي وحسن وادلي ضان وكاقر النمي يا ربي ما يبو لي dabeetana akhiran waxaa la odhanayaa mid baanu kuu haynaa xasano intaba ku xog badan baanu kuu haynaa bataaqa la keenaya bataaqada waa kaadh kuwana waa sijillaad kana waa bataaqa kaadh yar ayaa la keenaya kaadhka waxaa ugu qoran kelimatu tawxiidkiisi laakiin waa tawxiid aan afka ahayn dhab ah tawxiid aan dheeldheel ahayn waayo dadka tawxiidka la yimiba qaar bay nusuustu sheegaysaa la cadaabi doono oo dambiilayaala oo cadaabka marka lagaga soo gooyo kadib laga soo saari doono oo akhiiran ku dambayn doona maxay jannada xadiisul jahannamiyiin ku way sheegaysi ahlu macaasiga qayb ka mid ah tawxiidkooda ayaa rifan laakiin dadka tawxiidkooda uu adag yahay maqaam sare uu joogo iimaankoodu qanjaha joogo halkii Soomaalida rabbi siday u rumaysayeen ay xoogan tahay kuwaasi tawxiidkoodu uu badbaadinaya walidaalika bataaqadaas la keenaya dabeetana miisaanka la saaraya 99 kan sijilliba yada ka xoog badanaysa 99 kaba tamba ka cuslaanaysa idan ayuha alahibba darsigan aan maanta sheegaya wuxuu yahay isagoo kooban ucbudu allaha ma lakum min ilahin ghayruh wa waxa adduunkan lagu islaaxiyo وانا مفتاح دعوة الانبياء وانا حق كواد الهي حقي ساين للصغو الهي حقوق دي سمركي نسكنه كركاركي سينو هلينا وانا فرها قفك بني ادم كاين عقل جيس لفره وحا كفضت ان قلبي جيس لفره بني ادم كاتو قلبي جيس فرمه وانا ماشي ايمانكو قالو توحيدكو دغو saxaabadu iyagoo gaala oo fog oo durugsan ayaa iimaanku galay dabeetana 180 degree bay noloshoodu isbedeshay everything has changed wax waliba way isbedeleen oo noloshooda ka mid waxay isku bedeleen in kelmadani qalbigooda gashay ayaa wax waliba isbedeleen idan hadduu tawxiidku dadka quluubtooda si fiican u galo oo u barax tirmo waynu shawaa'ibta qashinka ka reebno oo tawxiid saafiya oo kii la rabay la nimaadno hadduu yahay tawakkulka iyo inaabada iyo nadarka iyo wax kasta aynu ilaahay acmaasheena u kala yeelo wuxuu inoo ballan qaadayaa rabbi subxaanahu wa tacaala adduunkanna inaynu ku liibaani doonno آخرنا إن نكون بادي دونه إذا وحنو باهناي فاعلم أنه لا إله إلا الله نبي محمد ويسقى وحي وكسو دقي عليه الصلاة والسلام يا إلهي وحكولي فاعلم أقول يالو أقو توحيد كاسي برشو باهي
iyo taxqiijin cilmi u baahan yihi inta badan dadku waxay bartaan weysada waxa buriya dadku wada garanaya weysada waxa buriya soo maaha laakiin laa ilaaha illa allah waxa buriya yaa garanaya bas diintoo laga baxun baynu naqaanaa saca maaha laa ilaaha illa allah goormay kaa jabaysaa dee haddaad diinta ka baxdo haddii kalese waxaynu haysanaa label mar haddii la isa suro aan dib u fuqin inuu yahay ku sodhaanaya wax badan baa buriya oo dadku iska fudaydsadoo samaynaya idan waxaynu u baahannahay tawxiidkeennaasi inaynu xaqiijinno oo si dhaba u baranno ilaahayna wuxuu inoo ballan qaadaya adduunkeennuna inuu islaaxayo adduunkeennana aynu joognaa inuu islaaxayo aakhiradeenuna inay islaaxayso sala allahuma calaa muxamadin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin